madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta oo Arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha Oktoobar 2019 warqadaha danjirinimo ka gudoomay danjiraha dalka Sweden ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Stefan Tillander iyo sidoo kale danjiraha dowladda Talyaaniga ee u fadhiyi doona Soomaaliya Mudane Alberto Feki. labada danjiro ayuu madaxweynuhu ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee Bila Soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Sweden iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo dowladda Talyaaniga. Sweden waxay kaalin mug ka qaadataa horumarinta iyo taageerada dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaheeda kala duwan. sidoo kale Talyaanigu wuxuu sidoo kale isagana kaalin mug ka qaataa sidii garab istaag diblomaasiyadeed iyo mid horumarineedba Soomaaliya loo garab istaagi lahaa. waxayna dowladda Talyaanigu si gaar ah si xoog badan uga shaqeysaa xoojinta hay'adaha amniga iyo tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa safiiradan inay u gudan doonaan waajibaadkooda si hufan. dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeeduna waxay ku soo dhaweynayaan gacmo furan iyo in ay sii dardargeliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah iyo saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Sweden iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Talyaaniga.